horay baan u soo marray 100 jeer baan iskhilaafnay 100 jeer baan soo fashilanay 100 jeer bay awoodeenu tagtay 100 jeer buu cadawguna qabsaday haddana ma ku sii wadaynaa qof kasta oo kala qaybinaya dalka iyo dadka Soomaaliyeed oo qabyaalad ku kala qaybinaya oo masaalix ku kala qaybinaya oo gobol ku kala qaybinaya oo deegaan ku kala qaybinaya qofkaasi waa cadow Soomaaliyeed waa siyaasiyiinta Soomaaliyeed ha ka xishoodaan inay isu jawaabaan ha ka xishoodaan in lagu ciyaaro mabaadi waaweyn iyo arrimo khatar ah oo taagan in wax aan micno lahayn lagu ciyaaro oo dadka la dhex geliyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed ha ka daayaan odayaasha Soomaaliyeed ha ka daayaan kala qaybinta bulshada Soomaaliyeed iyo iska horkeenka dadka ha la joojiyo ha laga waantoobo haddii la khilaafo oo waxaan micno lahayn la isku wada khilaafo sidoo Ilaahay sheegay marka ugu dambaysa fatafshalu waad fashilmaysaan Ilaahay dadka Soomaaliyeed waa inay saf waaxid galaan hal saf galaan dalkooda wada difaacdaan dadka Soomaaliyeed goormay qaan gaarayaan horta siyaasiga Soomaaliga goormu qaan gaaraya odayga Soomaaliyeed goormu qaan gaara goorma la qaan gaara ma marka adduunka la rogo dadka Soomaaliyeed waa in ay qaan gaaraan waa inay wax fahmaan waa inay wax ku hareeraysan fahmaan shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa dadka inay kala bartaan waxaan ugu baaqayaa inay aqliyeystaan waxaan u baaqayaa in la isku dirin markay joogto ay timaado dal markay timaado waa khad casay noo tahay waxaan mar kale ku baaqaynaa nabad iyo deganaansho iyo inaan la isgardaraysan